maxaad ka taqaanaa dhiigicabkii ugu weynaa taariikhda dalka Mareykanka? ku soo dhawaada barnaamijka. xafiiska dambi baadhista Mareykanka ee loo soo gaabiyay FBI ayaa sheegay kadib baadhis muddo dheer socotay in Samuel Little uu qortay dilka 93 qof, taasoo ka dhigan inuu yahay dhiigicabkii ugu weynaa taariikhda dalka Mareykanka. galka baadhista ninkan dambiilaha ah ayaa socday laga soo bilaabo sanadkii 1970 ilaa 2005. welina waa socdaa baarista kiiskani oo ma dhamaan. ninkan oo 70 sano jira ayaa sanadkii 2012 lagu xukumay xabsi daa'im inta noloshiisa ka dhiman oo uu ku qaadan doono xabsi ku yaala dalka Mareykanka isagoo lagu soo eedeeyay dilka 3 haween ah. mas'uuliyiinta FBI-da ayaa sheegay ninkan uu beegsan jiray haweenka masaakiinta iyo kuwa mukhaadaraadka isticmaala ee madowga ah. ninkan oo feeriyaan hore ahaa ayaa la sheegay inuu feer xoogan ku dhufan jiray qofka uu doonayo inuu ka takhaluso, kadibna uu cunaha qaban jiray ilaa ay naftu ka baxdo qofka. saraakiisha caafimaadka FBI-da ayaa sheegay in marnaba aan lagu baraarugin dililka haweenkaasi, waxaana loo haystay inay mukhaadaraad u dhinteen, iyadoo ilaa imika la leeyahay meedadka qaar ka mid ah haweenkaasi oo la rumaysay yahay in ninkaasi uu dhameeyay ama dilay. ninkan ayaa aaminsanaa in marnaba aan la ogaan doonin dambiyada uu geysanayo, isagoo iska dhaadhiciyay inaysan jirin cid ogaata. haddaba waxa soconaya baarista dhowr kiis oo kale oo dhammaantood dil ah, kuwaasoo tiro ahaan lagu sheegay 43 qof. boolisku waxay heleen macluumaad caddaynaya in ninkan uu ka dambeeyay dhammaan eedeymaha loo haysto dilka 93 qof oo Mareykan ah. dadka uu dilay waxaa ka mid ahaa gabar 19 jir ahayd oo ku dhex dilay beer qasabka lagu beero, halkaasoo uu ku qariyay meydkeeda. sanadkii 1993 ayuu sidoo kale ceejo ku dilay haweeney oo ku dhex qabsaday qol ku yaala hotel caan ka ah magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka. ninkan ayaa gacanta lagu soo dhigay sanadkii 2012 kadib baadhis muddo dheer qaadatay oo la xiriiray eedeymaha loo jeedinayay isaga. boob iyo dil uu ka geystay gobollo badan oo dalka Mareykanka. ninka Samuel Little ilaa imika taariikhda Mareykanka looga waa dhiigicabkii ugu weynaa taariikhda dalka Mareykanka, lamana xalin weli kiiskiisa. ninkan ayaa sidoo kale waxa la leeyahay qofkii uu sanifo oo dilaya. sanifaadda heerkaas ayay maraysaa dalka Mareykanka. ilaa iyo waqti xaadirkana wax la baaraya waxa uu ninkani ku sanifaya dadka, waxa uu dilayo, waxa ay ka geysteen, mana haya jawaabo ku munaasaba. sidoo kale ninka marka la wareysto waa iska indhitiraya waxa lagu sheegayo, kamana jawaabiyo su'aalaha qaar ka mid ah isagoo kaga baxaya oo kaliya ma aanan geysan dilin. daawada maanta barnaamijkeena inta ay nagu joogo.